السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما قيرت يوتيوب aan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay sidaan u helay number Mareykanka ah kaas oo isticmaaleyno in aan u isticmaalno dadka caadiga aan u isticmaalno iyo numberka ardayda in aan u isticmaalno private oo dadka qaraabada iyo ehelka dadka gooni u isticmaalaysid marka numberkan wuxuu ku isticmaali kartaa Tango WhatsApp numberka waxyaabo badan oo lagu talagalay hadna waa laga soo wici karaa qofkii aan numberkan siisid toos ayuu kaga soo wici karaa barnaamijkan telefoonka caadiga waana tijaabi doonaa marka aan bilaawno marka si aan furno barnaamijka mobilka fur kadib waxaad tagtaa Play Store ka fur kadibna Brimo barnaamijkan ayaa soo downloadaysanaysaa search-ga ku qortid Brimo si toos ayuu kugu soo degayaa barnaamijka marka ku dhufto sidan ayuu kugu soo baxayaa marka ku soo baxo waxa ku leedahay ku dhufo for free kadibna install ayaa leedahay si aad ugu shubtid mobilkaaga kadibna accept ayaa leeyahay kadib markaan wax yar ayaan sugayaa installation ayuu sameeyaa kadib waxaan leeyahay open si aan u furo marka waxaan sameynaynaa in aan registration ku sameyno gmailkeena ama emailkeena ama yahooga waxaad isticmaalaysay si aad u registeraysid kadibna create account ayaa leenahay si aan u sameyno kadibna waxaa leedahay magacaaga meeshaas geli kadibna magacii labaad aad ugu talagashay geli kadibna waxaa qoraysaa user magacaad u isticmaali doontid kadibna waxaa laga baahan yahay inaad ku qortid username-kii markaa qortay waxaa laga baahan inaad qortid password-kii haddana mar labaad waxaa lagu markaa password-kii qortid hubi oo ku celi oo mar labaad password-kii aad qortay waxaa laga hal mar haddii lagu dhaafo inaad qaadato laakiin labadood marka ku celi lagu dhahay waa taas username-kaas magacii marka goobiga username-ka aan si toos ah password ahaan u isticmaalay si aan u hilmaamin kadibna waxaa leeyahay sign up ayaan leeyahay kadibna waxaa ku soo baxay numberkii lagu soo diri lahaa wixii dhan ma u baahnid waxaa leedahay escape haddii aad u baahantahay inaad mobilka ku registeraysid wadankii aad joogtay iyo numberkaaga mobilkaaga ku registeranaysaa laakiin aniga waxaan uma baahnin waxaan leeyahay escape oo kaliya numberka markaas waa helaysaa numberka lagu siiyey sidan ayuu kugu soo baxayaa waa 518628 numberka si toos ayuu arkaysaa numberka waa soo wacay isla markaan soo wacay si toos ayuu usoo dhacay numberkii telefoon caadi aan ka soo wacay oo mataqaanaa kaar caadi ka soo wacay isla markii haddii aad tijaabisay qofkii caadi ula hadli kartaa tijaabina waa sameynay dad badan Mareykan joogaan ku tijaabinay numberka siinay kadibna waan kala hadalnay kadib markii numberka uu soo wacay miss call-kana ku soo wuxuu ku leeyahay haddii aan ka laabano oo mar kale aan isku dayno inaan tijaabino si qofku uu arko numberkan inuu shaqeynayo in kale kuwan barnaamijyadan aan ka soo baxno kuwan barnaamij ku soo bax waxaan barnaamij ka soo noqono kadib barnaamijka furno marka call-kan sameynayno si aan wacno numberkii wixii dhan waa kana marka ku jiskari kartaa wayna ku fududahay ujeeda numberkiina caadi u soo dhacay telefoonkana hadda qabashadan waa ujeeda caadi cagaarka laga qabta gaduudkana waa ka xirida marka sharabina kadib muhiimadda waxay tahay nambarada waxaa loo isticmaalo waxay tahay inta badan waxaa laga yaabaa inaad 2 WhatsApp 3 WhatsApp ama 4 WhatsApp inta badan si loo isticmaalo iyo Viber iyo waxyaabo badan u baahan tahay inaad nambaro badan kala duwan ku isticmaashid taasna waxay ku fududaynaysaa waxaan markaas ka soo xiro inaad ka faa'iidaysatid insha Allah bina kadib wixii aqoontaadna walaalka u faa'iiday comment like sharing subscribe la sameey insha Allah baan subscribe ku sameyn doona markaas qofkii ugu cusub ugu soo darsado waana mahadsantihiin assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran